السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أصحابي ميل كستو نغا داوانيسان كسو دوادا برنامجكينا هابيننمو وهابيننمو أحدا أو إسنين أي سو غليسو تاريخدنا waa 26 bisha luulyo sanadka 2026 haddaba barnaamijkeena waa kii saddexaad waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa ka mid ah xabad joojin lagu tilmaamay inay tahay mid isgaadgaad ah ayaa waxay u dhaxaysaa hadda Iiraan iyo Mareykan talow yaa la gaadi doonaa waa calaamad su'aal ay dad badan isweydiinayaan haddaba sheekada wixii laga yiri waan idin hayaa safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay oo isaguna ka hadlay ujeedada dagaalka Mareykanka ay u joojiyeen waxa soo kale aan idin soo gudbin doonaa Netanyahu oo ka hadlay arinta Iiraan ka hor intaanu u safrin Washington oo saacadaha soo socda uu doonayo inuu u ambabaxo iyo waliba golaha wasiirada Israa'iil oo maanta ansixiyay in gudidii loo xil saaray arinta Gaza ay Gaza gali karaan ciidamo caalami ah halka la geyn karo haddaba qodobadaas aynu barnaamijka ku soo qaadanayna intaan ku jirnana wixii soo kordho warar waanidii la socodsiin doona haddaba barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa wixii akhbaarada ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa xiisada u dhaxaysa Iiraan iyo Mareykanka haddaba waxaa la sheegayaa xabad joojin lagu micneeyay inay tahay mid la isgaadayo isgaadgaad xabad joojin ah ayaa hadda waxay u dhaxaysaa Mareykanka iyo Iiraan Mareykanka isaga bilaabay weerarka haddana isaga bilaabay inuu joojiyo Iiraanna way ka daba joojis wax lagu heshiiyay iyo wax banaanka soo baxay iyo wax xabad joojin oo la isku waafaqay male waa la isku bilaabay haddana waa la kala joogsaday siyaabo kala duwan la isku macneeyay Mareykanka waxba ka dhamaaday gantaali kan waay Iiraan waxay lahayd anagu xabadda ma joojinayno xabad joojin ku meel gaar ah kama yeelayno haddana way joogsadeen Iiraan markii xabadda laga joojiyay iyadana weeraradii ay ku haysay khaliijka iyo saldhigyada Mareykanka way joojisay marka nin khabiira ayaa wuxuu ku tilmaamay wuxuu yiri waa la isgaadayaa u dhahay Mareykanka iyo Iiraan waa la isgaadayaa Iiraan difaac ay ku jirtaa cidda laga warsugaa marka waa Mareykanku marka waxa leeyahay diblomaasiyadu fursad siinaya kanu siinaya Iiraan waxa la xasuuq ka jira ma jiraan ninka waa isu soo diyaarinaya waa ognahay annagana waa sugaynaa isaga iyo Netanyahu ay arkaan Washington ay ku kulmi doonaan maalinta Talaadada sida la leeyahay kadibna waa la wada hadli doonaa wixii uu Netanyahu halka ula tago ninka la iman doona marka waa la isgaadaya marka waxa leedahay isgaadgaada ka jira meesha haddaba marka ardaydu soo wararkii ugu dambeeyay arimaha laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay wuxuu yiri Trump wuxuu fursad siinayaa dhanka diblomaasiyadda arinta Iiraan safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay oo la hadlayay shabakada Mareykanka ee la Fox News ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu fursad siinayo hanaanka diblomaasiyadda ee Iiraan haddaba isagoo warkiisa sii wato waxa uu sheegay in wada hadallada Iiraan ay hadda socdaan sida uu leeyahay oo mustawa ay markaa wanaagsan marayaan inkastoo kala qaybsanaan ay ka jirto leeyahay gudaha nidaamka Iiraan gudihiisa haddaba wuxuu yiri Mareykanku way haystaan wax ku filan oo hawlgallada military ee ka dhanka Iiraan ay ku wadi karaan ninka marka Trump wuxuu leeyahay dagaalku wuxuu u joojiyay arimaha diblomaasiyaddu fursad siinaya haddana diblomaasiyadii duraya wuxuu leeyahay Iiraaniyiinta dhexdooda ayaa wax ka jiraan qaarna way rabaan qaarna ma rabaan camal mid saddexaad uu ka jawaabay oo aad u soo laalaabatay oo la leeyahay Mareykanka wixii ka dhamaaday wuxuu leeyahay wax naga dhamaada male wax walba waa haysanaa ee annaga iskeen u joojin marka ninka warkaas ayuu soo saaray ayaan arkaynaa ninkii Netanyahu ahaa ayaa isaguna hadlay
haddaba Netanyahu wuxuu yiri waxaa lagama maarmaan ah in barnaamijka nuclearka Iran uu ku dhamaado wada hadal ama arrin kalaba. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaguna la hadlay shabakada la yiraahdo Fox News waxa uu sheegay in aan marnaba la deyn doonin Iran in barnaamijkeeda nuclearka uu dhamaado yiri oo uu ku dhamaado wada xaajood ama in arrimo kale ama dagaal uu ku dhamaado. waxa jirtu leeyahay inaysan Israa'iil marnaba haraynin ilaa arrinkaasi uu dhamaado. ninkan marka wuxuu u socdaa saacadaha soo socda Washington dhowr arrimood oo ka hadlay inaan marnaba maartay Iran aysan Israa'iil aysan deyn doonin Iran inta barnaamijka nuclearka uu shaqaynayo. marka wuxuu leeyahay wada xaajood ha lagu baabi'iyo ama dagaal ha lagu baabi'iyo Israa'iil way ka go'an tahay in la baabi'iyo arintaas. wuxuu kale uu ka hadlay oo muhiim ah waxa kamid ah haddii Iran ay nasoo weerarto waa weerari doonaa laakiin arrin kale ku daray markan uu leeyahay awlaadeeda xataa haday nasoo weerarto Iran si aan toos ahayn noo soo weerarto marka arrinka waa ka jawaabi doonaa uu leeyahay. marka dhowrkaas arrimood oo daldalay wuxuuna sheegay inuu kala hadli doono arrimo badan ninka la yiraahdo Trump marka uu u tago oo halkaas kaga gudbaynaa. sheekada kale ee soo korortay waxay tahay golihii wasiiradu fariisiyay maanta Netanyahu waxayna ansixiyeen in maamulkii Gaza ee shaqayn lahaa loo fasaxo gudaha Gaza inay galaan alquwa caalamiya ama ciidamo shisheeyana inay halka tagi karaan waxyaabahaas ogolaadeen. markii hore arinta uu diidanaa laakiin kulankaas waxaa diiday kaliya la leeyahay Ben Gvir kaliya ayaa diiday wasiiradii kale way ogolaadeen. sababta uu maanta ugu soo aadiyay marka maxay tahay dadku waxay leeyahay wuxuu soo aadiyay wuxuu rabaa Trump inuu wax kaga bedesho markuu Trump uu yiraahdo arintii Gaza waa ka soo xaliyay Iran ha ka harinay sida ku sameeyay samay ninkan marka ujeedooyin waaweyn ayuu ugu socdaa ninka Trump. haddaba marka arintu soo jeedada la yiraahdo Sharqul Awsad ayaa qortay warbixin ay leedahay Israa'iil waxay ogolaatay in ay galaan ciidamo caalami ah Gaza. haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay golaha wasiirada ee siyaasadda iyo amniga ee kooban ee Israa'iil ee la yiraahdo cabinetka ayaa hadda maanta oo ay shireen waxay ku heshiiyeen oo ay golaadeen in marka ciidamada deganaanshiyaha caalamiga ilaalinaya ee ka socda golaha nabadda ee lagu heshiiyay ay markaasi iyo gudidii maamulka Gaza ee golahaasi in loo ogolaaday inay galaan Gaza. haddaba arintan oo ay isku raaceen golaha wasiirada ayaa waxaa la sheegay in mucaaradad xoog leh kaliya ay kala kulmeen ninka la yiraahdo Ben Gvir oo ah wasiirka amniga gudaha. marka sheekada iyaduna wararka cusub ee soo kordhay ay kamid tahay marka Hamas miyay ogoshahay in ciidamo shisheeye galaan Gaza waa calaamad su'aal. maamulkan iyo sidan loo ogolaaday inay galaan waa maamul noocee ah sidee ula jaan qaadi doonaa maamulka cusub ee Hamas ay sameysatay dhawaan ninkii ay doorteen Khalil al-Hayya iyo ragiisi maktabkii siyaasadda Hamas miyay ku lug leedahay waxa soo dhan wali waxay u baahan yihiin in maartay aad looga hadlaa la leeyahay. marka meeshaas wax badan ka jira way warka ugu dambeeya xiisaha leh marka barnaamijkan ku soo qaadanay wuxuu yahay Iran waxay u hanjabtay Ukraine. markab Iran ay leedahay ayaa Ukraine ku weerareen waxaana amarka bixiyaa leeyahay Zelensky. Iran marka waxay wallahi ka taayna kaga hareynay leedahay marka bad waxaa jira Bahru Ghazwin la yiraahdo oo Iran iyo Ruushka iyo u dhaxaysa jirta oo ganacsigooda uu maro Ruushka iyo Iran iyo meeshaas ay marka inta timaaday ayay markabka Iran leedahay garaaceen. marka wasiirka arrimaha dibadda Ciraaqi ayaa si xun arrinka uga jawaabay. haddaba marka aad tusoo wararkii ugu dambeeyay Ciraaqi wuxuu ku eedeeyay Zelensky inuu bartilmaameedsaday markab Iran ay leedahay oo marka wuxuu sheegay weerarka markabka lagu qaaday inaanu jawaab la'aan noqon doonin.
haddaba wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa axadda maanta ah waxa uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in uu amray weerar in lagu qaado safiinada ama markabka ganacsiga ee Iiraan ay leedahay kaasoo la sheegay in hal qof uu ku dhintay weerarkaas oo shaqaalihii la socday ka mid ah waxaana la sheegay in arintani waxa uu sheegay ay tahay qalad weyn oo ku saabsan in meel looga dhacay heshiisyada caalamiga ee qaramada midoobay haddaba waxaa la sheegay in weerarkan uu ka dhacay meesha la yiraahdo Bahrul Qazwin marka waxaa soo kale hadda yara soo baxaya sihayaha xafiiska ama kusimaha xafiiska safiirka ee Ukraine ay ku leedahay Tehran oo loo yeeray marka Iiraaniyiintu aad ay arrinka uga careysan yihiin la leeyahay marka wax jawaaba oo Zelensky iyo kooxdiisa ka soo baxay ma jiraan marka xiisadaas iyaduna way taagan tahay wararkaas ayaa ugu waaweynaa caawa waan hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijkaygii koobaad iyo kii labaad ee maanta dadka aan daawan iyaguna way daawan doonaan waxaa ku jira qodobo kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan dhammaantood wararkii ugu waaweynaa ee xaaladda guud gaar ahaan bariga dhexe inta aan mar kale kulmayno la gareeyo oo sheer gareeya barnaamijka asxaabay nabadgelyo